إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan taaganahay waa qabri laba arrimood baa halka munaasabka ah inaan u duceyno Jenaraal Cabdullaahi in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu qabrigiisa u nuuriyo dambigiisa dhaafo jannadii firdawsana uu geeyo annagana in cibro noogu noqoto Ilaahay uu noogu dambi dhaafo xaadiridaan aan soo xaadirnay waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u rajaynaynaa in uu maanta jamacaan faraha badan isu yimid ugu naxariistay salaadii janaasa iyo ducadii loo sameeyey eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynaynaa in uu Ilaahay sabir iyo iimaan ka wasiiyo wuxuu ahaa halgamaa wax badan ka soo qabtay dadka Soomaaliyeed iyo Puntland taariikhdu way xusi doontaa annaguna waan xasuusnaan doonaa haddii Ilaahayna ka dhigo waxaan rajaynayaa dhammaan dadka reer Puntland iyo cid kasta uu la macaamulay oo ay wax kala gaareen inay cafiso waxaan insha Allah rajaynaynaa ciddii wax gaar ah u haysatana inay dowladda Puntland ay la soo xiriiraan insha Allah wixii ka dhimanna waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu qabriga u waasiyo qabrigana uu naxariis ku siiyo jannadana uu naxariis ku siiyo. Assalaamu calaykum.